waftigani ballaaran ee soo gaadhay xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga oo hogaaminayay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayna ku weelinayeen wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdifataax Maxamed Geesay wasiirka jaaliyadaha iyo dibudejinta ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudane Axmed Sheekh Maxamed Loxos wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Xasan Cabdi Maxamed iyo wasiirka dhaqan celinta maleeshiyaadka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Cali waxa si weyn ugu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ee Gradwell Wall madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar afayeenka baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Rashiid Isaaq madaxweyne ku-xigeenada dawladda deegaanka Soomaalida wasiirada deegaanka mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda deegaanka iyo kooxaha fanka dhaqanka iyo suugaanta ee dawladda deegaanka Soomaalida oo iyagu halkaas ku soo bandhigay ciyaar dhaqameed kala duwan ugu horeyntiina waxaa qolka martida ee garoonka caalamiga ee Gradwell Wall warbaahinta deegaanka kula hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar isagoo ugu horeyntii soo dhaweeyay isla mar ahaantaana sheegay inay ku faraxsan yihiin imaatinka dalka iyo deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo waftiga ballaaran ee uu hogaaminayaba deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiya waxaan leeyahay booqashadiisa inaan aad ugu faraxsanahay isaga iyo waftiga watana waxaan leenahay welcome kusoo dhawaada maxaan ku rahay Itoobiya kusoo dhawaada deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga runtiina waxa weeyaan ilaa doorashadii xilligii la doortay ee sida sharciga loo doortay aad ayaan ugu faraxnay sababtoo ah waa nin aan aaminsanahay inuu isbedel waxa weeyaan ka keenayo darisnimo wadaaga waxa weeyaan dalka Itoobiya iyo Soomaaliya shalayna ka shaqeynayay haatan waxa weeyaan ka shaqeynaya gaar ahaan waxa weeyaan la dagaalanka argagixisada geeska Afrika dhibaato ku ah marka waxaan leeyahay welcome soo dhawaadana dankiisana madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isaguna sheegay inay si weyn u farxad gelisay soo dhaweynta xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida u sameysay sheegayna in socdaalka waftigan uu hogaaminayo ay tahay mid khibrad wadaaga xog isweydaarsi iskaashi dhanka nabadgelyada iyo waliba mid walaaltinimo soo dhaweynta waa ku mahadsantihiin sidaan loo soo dhaweeyay madaxweynaha aad baan u mahadcelinaynaa waan rajaynaynaa kulley inaan dharka maalmood beriyaan la joogno waxaan rajaynaynaa inaan iska wareysano bal sidii uun darisnimadii iyo walaalnimadii iyo sidii uun xaaladda aan iskaga warsan lahayn Soomaaliya kulley dhibaato ka jirto gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed inuu maamulkan uu gacan siiyaan rabnaa hadii la hay'admo marka saasaan ku nimid waan soo booqnay waxa ugu horeeya nagala caawiyaan rabnaa horta dhinaca nabadgelyada in nagala caawiyaan rabnaa anaga shabaab baa dhibaato badan ugu hayo marka dhinaca nabadgelyada iyo dhinaca horumarka uu gaaray deegaanka Soomaalidu inuu horumarkaasna la qaybsano ayagana ay macallin oo noqdaan aan rabnaa inaga wax naga tusana dilhaadno intaasi kadib ayaa waftigii ka socday maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta xukuumadda deegaanka Soomaalida oo hogaaminaya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ay u soo kicitimeen hoolka weyn ee loogu talagalay shirarka heer deegaan halkaasi oo howlwadeennada hoolkaasi ay uga warbixiyeen mas'uuliyiinta waftigan ayaa intaasi kadib booqday kulliyadda maareynta iyo adeegga shacabka iyadoo halkaasina mas'uuliyiinta kulliyaddu ay uga warbixiyeen waftigani qaab shaqeedka awoodeed ee kulliyadan oo ballaarin lagu sameeyay sanadii la soo dhaafay waftigani ay horkacayeen madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa sidoo kale ay booqdeen Males Zenawi Memorial Referral Hospital iyagoo soo indhayndeeyay Referral Hospital kani halkaasina ku dhageystay warbixino ku saabsan dhismaha qalabaynta iyo waliba qaab shaqeedka Referral Hospital kan waftigan ayaa socdaalkooda ku tagay kulliyadda caafimaadka ee magaalada Jigjiga halkaasi oo mas'uuliyiinta kulliyaddu ay uga warbixiyeen waaxaha kala duwan iyo qaab shaqeedka kulliyadan iyagoo soo kormeeray waaxaha kulliyadan xilli ay ardaydu si habsami leh u qaadanaysay dunuusta kala duwan ee kulliyadaas ay bixiso kulliyadan oo soo saarta xirfadlayaasha caafimaad ee ka howlgala guud ahaanba deegaanka Soomaalida waftigani ka socday maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayna ku weelinayeen xubno ka tirsan golaha wasiiradiisa ayaa muddada ay khibrad wadaaga u joogaan deegaanka kulana la qaadan doona mas'uuliyiinta sare ee xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya